Safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay waddankani South Sudan ayaa waxaa soo buux dhaafay in dadka Soomaalida ay doonayeen inay dib ugu laabtaan Soomaaliya iyadoo barqanimadii saaka ay soo gaareen safaaradda dad Soomaali ah kuwaas oo doonaya in la diiwaan galiyo waxaana safaaradda ay sheegtay inay rajaynayso ilaa 5 cisho gudahood inay soo caga dhigato diyaaradii saddexaad ee qaadi lahayd dadkani isaguna safiirka uu sheegay in ay diiwaan galiyaan dadkani haddii ay jiraan hanti laga dhacay si ay uga xisaabtanto dawladda waddankani South Sudan qofkii ay hanti ka maqan tahay ama ha noqdaano baabuur ama ha noqdaano hanti kale oo magurta ah safaaraddu waxaan ka furnay book registration oo la qorayo qofkii ay wax ka dhumeen ama laga dhacay ama sida ay yihiin si dawladda Soomaaliyeed ay ugu dacwooto wixii ka maqan qofkaas ama qofka Soomaaliga ama ha noqdaano shirkad ama waxay yihiin iyadana ina sameeysan si hadhowdi dawladda ay u dabagasho safaaraddu ay ugu howlgasho sidii ay u helayeen qaar kamid ah dadkani oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku waayeen waddankani South Sudan markii ay ka bilaabeen dagaalada hanti fara badan iyadoona sidoo kale qaar kamid ah ay sheegayaan inay ahaayeen darawallo kaxeeya gaadiidka waaweyn hase ahaatee laga dhacay gawaaridaasi wallahi xaaladda guud marka kaaga warramo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool South Sudan iyo goboladeeda dadka dhibaato badan baa soo gaadhay hantidooda haday gaadiid tahay iyo haday bidaacad iyo wax kasta tahay inay garab nasiiso waddankan Soomaaliyeedayso waa tahay maxaad uga cararaysaa marka dalkan waxaan u niminax ku qabsano waxna ku qabsadeen dagaal ay socdo aniga dukaanka inta xirtay maamin ku hooyaaday ka bacdi dagaal qabsaday markaan qabsaday waxaan u cararay Yunumiskan ku jiray markii waddankii dawladdu hadana qabsatay aan waddanka soo fiiri dukaamo iyo cidlahan u tagayo wax yaalaan aan ka bacdina wax soo carar Ambassador Abdulrahman Nuur Maxamed Diinaari ayaa kaga mahadceliyay duulimaadyada Daala Airline sida wanaagsan ee uga qayb qaadanayso daabulida dadka Soomaalida ee doonaya dib inay ugu laabtaan Soomaaliya marka leega Soomaalida tirada badan ee marka ka dambaysa soo buuxinaya safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay caasimadan Juba ee South Sudan ee doonaya inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo ayaa sidoo kale waxaa jira iyaguna Soomaali aan doonayeen inay dib ugu laabtaan dalkii Soomaaliya kuwaas oo halkan ku leh ganacsi aad iyo aad u xooggan isla markaana ka ganacsada hoteelada iyo sidoo kale shidaalka maadaama waddankani South Sudan uu qani ku yahay shidaalka marka la eego qaaradda Afrika marka la eego dagaalada ka soconaya waddankani South Sudan ayaa waxaa ku naf waayay in ka badan 1,000 ruux iyadoona sidoo kale dagaaladan ay ku qasbeen in ay barakacaan in ka badan 2,000 oo ruux kuwaas oo hoy aan ku haysanin goobaha ay ku barakaceen iyadoona muuqanaysa dadkani in ay degan yihiin meelo bannaan sidoo kalena ay caawinayaan hay'adaha gargaarka bixiya Cabdirasaaq Miro Doore Hon Cable TV South Sudan Juba